halkani waa fagaaraha Funny Football ujeedkeenu waa Kaftan Sports El Clasico isku bedeshay El Xasuuq kadib markii Real Madrid lagu barbartay waxa baciiligaha ay kulankan inuu Messi ka maqnaa 10 ayaan ku dhufan lahayn Real Madrid hadii uu joogi lahaa wali cilma noo qabtiin mar hadii Suarez saddexlay naga dhigay kulanka El Clasico sidoo kalena macallinkana la buriyay dib ma lahan kuwan jab kale uma harin saaxiib shanta farood sare u taag si taageero walba oo Madrid ah uusan salaanta kaaga qaadin waa inoo mar kale iyo markii aan dib isku soo abaabulno waa alle haddii taageero Real Madrid maanta uu libintana siinayo jileeca shanta gool ayaa ka keentay kuwan wax ka qaraar badan ma jiraanba Madrid baa gubanaysa oo 5 gool lagu xasuuqay maxaa iiga gadhisha iyaga isku geystay war dhankeen naga xigtaa adiga dhanka Thibaut Courtois goolaayay Chelsea ku qasbay inay fasaxdo kuna biir Real Madrid El Clasico-diisa koowaadna 5 gool laga dhaliyay hello Conte mudana Bres wariga soo gaar waana la xasuuqay spirit-kaaga ayaan u baahannahay haye mudane hadda ayaan Madrid falaad u soo raacaya saxaafadana sii diyaari ana dib u dhisay kooxdii Julian Lopetegui uu burburiyay isug Bres waan kugu soo celinayaa kool kale ayaa igaraacay hello Antonio Conte yaa ila hadlaya waa qareenka Chelsea wax talaabo ma qaadi kartid adigoo aan iska bixin 10 milyan ee aad hormarsatay yaa kuma maqlo yaa adiga dhinacad ii maqlayo markaan daacad kugu soo ogno walla Chelsea shaqadeeda cusub ay aqoonsan rabaa sideen wax yeelaa bal aan dib u waco mudana Bres waxa kugu soo laabtay Conte fadlan lacagta 10 milyan ee Chelsea iga rabto iga bixi sidaas haday tahay kooxdeeda Santiago Solari ayaan si ku meel gaar ah ugu dhiibtay adigana soo xalli aniga Talyaani bakaal u duugan yahay beesto kama bixin kare Santiago Solari warkaas yuusan ku qiyaamin maaliyad Barcelona ayuu hoos ka wataa Messi wuu taageeraa waa markii Real Madrid heerka labaad u dhici lahayd Bareso waa markii ugu horeysay 10 kulan ee ugu horeeyay horyaalka English Premier League oo aan 3 naadi laga badin wartan waa taageero Chelsea xogtan webna la wadaagtay ma inoogu dar 3 koox laba kamid ah inay hogaanka hayaan mid saddexaadna ay kaalin saddexaad ku jirto adigana waxa tahay taageere Liverpool madrunta sheegtid in horyaalka Man City goolal ku hayso marka aad la soo boodaysid Chelsea saddexaad ay ku jirtaa war meesha ku kala taga ma ogidin miya in milkiilihii Leicester horyaalka u qaaday 2016 mudane Fichay uu geeriyooday markii diyaaradiisa banaanka King Power ay ku burburtay maxaa naga galay Leicester ma sheegtid guusha Man United iyo in aan Lukaku lugu weyna ka reesanay waxa soo dhan waxa ka saameyn badan in Arsenal taaka loo dhigay soona idlaatay 12 kulan oo isku xigto ay kooxda Unai Emery badinaysay war ileen horyaalka saxaafada bilaash looma dhihin maadaama koox walba ay rabto in gooni loo sheego Real Premier League Serie A ma bala socotiinba Inter Milan haddaan nahay nalooma dhawaan karo hadda nalooma dhawaan karo waa sax Juventus 6 dhibcood ayaan u jirsanay Napoli-na waan la soo degnay 6 kulan laga badin wallahi waa runta Mauro Icardi waa bilcilin weysan yahay waa xidiga Inter garabkiisa ku wado gooshana aan laga celin karin arkuwaan ila dhageysta waa laba Inter Milan oo been isku sheegaya Real Juventus hogaanka u haysa iyo Ronaldo 7 gool sii maraya ay Icardi isku qancinayaan inuu wax u qaban karo war naga tag wax walba dhamaad ay leeyihiin file in aan xilli ciyaareedkan soo afjarno taliska dheeraade ee Juventus waa sheeko qayaali ah eeriyada ka bax mase film sameeyo ayaad isku bedeshay oo waxa uu doono sheeka ka dhiga Ronaldo qosolka ka dhamaaday ee saaxiibo maxaad ku qosashay Real Madrid maxaa ku dhacay shana loo dhiibay saaxiibo kooxda sidaan uga camranin waa kooxdaadii hore wala rabi inay sidaan ku dhacdo Beres qalbigiisa yaa iga soo waramo saaxiibo Ronaldo Barcelona adoo Real Madrid jooga 5 way ku dhiibtay ee si amal warahay fiiri markaas Messi ayaa ciyaaray marka hadda Messi gacanta ka jabay Messi gacanta ka jabna iska cili waayeen Real koox iska dirtay kan adduunka ugu wanaagsan uuna hogaamiyo Indole Florentino Perez waa u qalmaan natiijadan hadda ila faantay
dhacdooyinka fani football kala soco idaacadda ciyaaraha FM